qaab dhismeedka jirka. Ma ogtahay daawade in jirku uu ka kooban yahay 640 masalis ama murqo iyo 360 joints ama af Soomaaliyan sidaan u naqaano isgoys, oo joints micneheedu waxa waaye af Soomaaliyan isgoysyada waayo meelaha faraha iyo jirka uu ka lablamo. mise la socotaa daawade in jirku lafaha uu leeyahay ay gaarayaan 206 lafood. ma ogtahay daawade in jirku uu ka kooban yahay 33 vertebrae ama laf dhabar, kuwaasoo isugu jira cervical vertebrae oo ka kooban 7, thoracic vertebrae oo ka kooban 12, lumbar vertebrae oo ka kooban 5, sacrum oo ka kooban 5 iyo coccyx oo ka kooban 4, oo marka la isku daro totalkoodana ay gaarayaan 33 lafood. ma ogtahay daawade lafta ugu yar lafaha jirka in ay tahay lafta loo yaqaano stapes oo ka mid ah lafaha ku jira dhegta. mise la socotaa lafaha ku jira madaxa in ay tiro ahaan yihiin 22 lafood. ma ogtahay daawade xubinta ugu weyn jirka in ay tahay maqaarka ama aan u naqaano caafimaad ahaan skin. waxaase ka marnayn inaad la socoto qanjirka ugu weyn in loo yaqaano liver ama beerka. ma ogtahay daawade mise la socotaa unuga ugu weyn jirka inuu yahay female ovum oo ah ugxaanta dumarka. ma la socotaa daawade unuga ugu yar in loo yaqaano sperm cell ama minida ragga inay tahay unuga ugu yar unugyada jirka, waxaana loo yaqaana caafimaad ahaan sperm cell. ma ogtahay daawade in aad leedahay 32 ilkood ama teeth sidaan u naqaano luqadda Englishka. mise la socotaa daawade feeraha bini'aadamku in ay ka kooban yihiin 24 tiro ahaan. ma ogtahay daawade wadnaha in uu leeyahay 4 chambers ama 4 qaybood oo ah labada qayb oo kore ee loo yaqaano atrium oo isugu jira right iyo left, iyo ventricles oo iyaguna isugu jira right iyo left, oo laba right iyo laba left oo ah afartaas qaybood ayuu ka kooban yahay. ma ogtahay daawade in jirku uu soo saaro maalintii 800 ml oo dhidid ah ama sidaan u naqaano sweats sida muuqaalka sawirka idinkaga muuqata. mise la socotaa daawade culayska caruurta ku dhashaan in uu yahay celcelis ahaan 3 kilogram. ma ogtahay daawade hiddo-sidaha bini'aadamku ku dhasho tiro ahaan inay gaarayaan 46 chromosome ama 46 hiddo-side. hiddo-side sidaan u naqaan caafimaad ahaan waxaa la yiraahdaa chromosomes. waxaase meesha ka marnay inaad la socoto neerfaha maskaxda ku jira in ay gaarayaan 100 milyan oo neurons ama neerfo. ma ogtahay daawade waqtigu ay dumarka uurka sidaan in ay gaarayso 280 maalmood oo u dhiganta 40 isbuuc. weligaa ma daraasaysay mise maqashay in garaaca wadnaha maalintii uu gaarayo 115,000 oo garaac in uu maalintii uu gaarayo. mise la socotaa daawade unugyada cascas ee dhiigga in ay noolaan karaan 120 maalin. ma ogtahay daawade unugyada difaaca jirkeena ee loo yaqaano WBC in ay gaarayaan caadi ahaan ilaa 7,000 oo unugyo. mise la socotaa unugyada loo yaqaano WBC ee ku jira dhiigga in ay noolaan karaan 14 maalin. ma ogtahay daawade inta jeer uu noolaha neefsado maalintii in ay tahay 23,000 oo jeer. mise la socotaa cadadka guud ee dhiigga ee ku jira jirkaaga in uu yahay 6 litir oo dhiig ah. mise la socotaa ama ma ogtahay daawade in caruurtu ay ku dhashaan 300 oo lafo, kuwaasi oo ugu dambeyn isku dhaga tiro ahaana noqda 206 lafood sidaan hore usoo sheegnay. ma ogtahay daawade mise la socotaa unugyada cascas ee jirkeena lagu sameeyo in lagu sameeyo dhuuxa lafaha ee loo yaqaano bone marrow, waa unugyada RBC-ga. ma ogtahay daawade in unugyada isha ee loo yaqaano retinal cells ay tiro ahaan gaarayaan 127 milyan, noolahana ay u suurageliyaan in uu kala saaro 10 milyan oo kalara ah.
weligaa ma maqashay daawade unugyada qaabilsan urta in ay tiro ahaan gaarayaan 100 milyan ee loo yaqaano olfactory receptors noolahana ay u suurageliyaan in uu kala saaro 50,000 oo dareenta ur ahaaneed oo kala duwan. haddii ay tahay markii kugu horeysay oo aad soo booqato YouTube channelkayga, fadlan subscribe saar, gambalalka furo oo la wadaag asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adigoo kale.